waxa loo yaqaano a iyo an bayn ka hadlaynaa maanta ama independent articles waxyaabaha loo yaqaano ama adawaat an-nakira independent articles ka waxa asaad ka muuqata halka aad artaan waa in a iyo an qaabka loo kala qaadano arki doonaa iyo sidoo kale dependent articles ama adawaatul macrifa wixii muuqda ama la garanayo wixii lagu garanayo ay hogaaminayso way haddaba inta markan ka imaadno waxa ugu horeeya tusaalaha yar ugu horeeya aan bixinaynaa qaabka kala saaridda adiisinaya waxa weeye marka leedahay give me a book isi iyo oo ay ku tusinayso waxaas inaan book la isku ogeyn uu yahay boogun isi ku leeyahay wuxuu doonaa ahaada book doonaa ahaada iyo way kala duwan yihiin marka halka dambe ay ku qoran tahay give me the book marka leedahay waa boogii isi waa boog isla ogeydeen يعني waa book macrifa ama dependent articles waxyaabaha loo yaqaan marka waxay ku kala duwan horta waka way English alphabetkana waxa loo yaqaano 16 way waa shan faawalisa ama waxa loo yaqaano حروف العلة iyo 12 consonants ama 21 consonants loo yaqaano حروف المتحركة يعني شنطة فاولس كذا كو وأ يا يا أي يا قاب كوي شنطة واحد لو يقانا حروف ساكنة أما حلا حروف العلة قاب كانوا أذكر رسين كذا قاب نشقد بالعلنا أي أو نشقدها وهي إمرك أنت على جاي ما تو 21 consonants أما حروف المتحركة مركز ما إنه يجوا ويقبل من بي إلى سروي alphabetki caadiga ahayd haddaba qaabkeebay aniyo u kala gelayaan oo ah dependent articles example tusaalihiis bayn hore ugu soconayna way tusaalayaasha waxa ugu horeeya imka saarka ka muuqataan an apple imika hadii vowelska si good vowelska waxa hormaraya oo gelaya waxa loo yaqaano an 12 consonantskana waxa gelaya waxa loo yaqaano aada caadiga oo laga horeysiinaya sidaas ay u kala leeyihiin inaad fahanteen ma filaya qoylatanka consonantska hadduu xarafku b ka bilaabo masar ku dhamaado oo alphabetka caadiga yahay wuxuu ka bilaabmaya waxa laga horeysiinaya imika tusaalahan halka ku qoran pay attention bdaas waxay ka mid tahay bahalki marka waxa ka hormaraya tusaalahan kale imika laba tusaale jiro aan doonayn in lagu hungoobo imika halka ku qoran umbrella ku qoran qaabka aan labadaba ma aan baa loo isticmaalaya maadaama yihiin vowels yihiin may ta hore waa sax laakiin ta dambe waa khalad sababtu maxay tahay ta hore waxay ka bilowmaysaa meesha ay ka bilowmaysaa waxa weeye ee ay ku qoran tahay u-daasi qaabka lagu dhawaaqayo iyo way kala duwan yihiin sida uu yahay waxa lagu dhawaaqayaa ahaan ama alif carabi marka la eego umbrella yu kama bilowmayo qaab dhawaqiiba isbedelaya marka lagu dhawaaqayo halka xarafka labaad ee meesha ku yaala ee loo yaqaano ununicrine yu ahaan baa lagu dhawaaqaya halka oo yudaas alfawaliski ama xuruful illa ay noqonaysaa qaab ya baa lagu dhawaaqaya sidaa darteed anti ma gelayso oo waxa laga horeysiinayaa wixii dhawaaq ahaan u noqonaya vowelsna de waxa qasaba in aadi laga horeysiyo wixii dhawaaq ahaan u noqonaya maartay kolatan consonantskina saaso imika tusaalahan halka house baa ku qoran guri saacada house waxa la guri imika halka dambe hour labadaas ma aba labadaba lagu qoraya may ka ugu horeeya waa saxo house laakiin tan dambe hashtaas dhawaaqeeda isbedelayo hour buu noqonaya hour sida darteed maadaama meesha ay maadeen waxa loo yaqaano xuruf mutaxarrika waxa laga horeysiinayaa an baa laga horeysiinaya marka qaabka dhawaq waa sida ka hore wuxuu noqonayaa waa hecho waa sidii saxda ahayd oo kala ta consonantsku kamid yahay aad baa laga horeysiinaya ka labaadna h ma he dhawaqii buu dumaya qoraal ahaan iyo maartay nudqigii waxa kala duwanaanaya qoraalkii sida darteed a baa lagu dhawaaqay marka an hour isagoo qoraalkiisa u qoran way tusaalayaashiiba dee hore ugu sii soconaynaayee tusaalahan imika waxa loo yaqaana anya tusaalayaashiisa ayuu doonaya inuu hore noogu sii wado wuxuu ku leeyahay it is
determined by the first sound not the first letter imika jumlada it is halka aad ku qorataa first sound iyo letter ujeedadu waa halka esta iyo elta ether letter sound letter dhawaqooda hadda eego way sidoo kale waxa loo yaqaanaa tusaalaha yar kale oo meesha ku xardhay wuxuu ka hadlayaa but I or an qaabka loo kala isticmaalayo ka hadlaya marka kaas casharkan ka soo diyaarinaa isaga intaas inagu joogaysa. Wassalaamu calaykum.